rabnaa inaan la tartano dunida waxaan rabnaa dadkeena iyo dalkeena inaan xoreyno waxaan rabnaa inaan dhaqaalaha wadanka kobcino dhaqaalaha wadankana laguma kobcin karo dadku haddaanay xirfad lahayn haddii la isbarbar dhigo marka xirfad laawayaasha iyo kuwa xirfadda leh waxaad og tahay in kuwa xirfadda lehi ay u dhow yihiin kuwa dhaqaalaha kobcin lahaa maadaama marka aan rabno in aan xorowno si aan u xorownana meesha ugu horeysa aan ka xoroobayna ay tahay inaan dhaqaalaha wadanka kobcino qof walba oo Soomaaliyeed oo isku filnaado noloshiisu ay wanaagsanaato si uu dalka iyo dawladnimada intuu u jeclaado u difaaco waxa loo baahan yahay dadku inay xirfad yeeshaan waxa ku xisaabtantaan Daawud Jeyte sanadkii uu ku jiray ardadii ay la dhiganaysay iyo maalintii maxadku uu burburay dalka anaga nagu dhagan sanad walba wuxuu laba jibaarayay saddex jibaarayay afar jibaarayay dad xirfad leh oo ka soo baxay maxadyo kala duwan oo aqooneed waxa kale oo barbar dhigtaan maxadkii isaga ahaa meesha uu ku yaalay sawirkiisina la tusay sidoo yaalo waxaad ka fikirtaan 87 ama 8 haddii dalka Kenya ama Uganda ay lahaayeen maxad dhismihiisu saas oo gahay waxaad qiyaastaan maantay sida uu maxadkoodu u yaalo waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed waxaan daawanaya ama halkan fadhiya oo haddana aanan u qushuucayn meesha dalkooda uu joogo waxaan rabaa inaan isugu noqdo يعني نولل عادية أيها نولل عادي هنا أمضى الصومالية لنا يعني واحد ربا إن لدم قضوا حجيبا جوجنا أنا دي شيء جاي وحن جوجنا واحد كسر قادا إن هذا حول الضغط تاعي نف أريا أما أري أكجع صوته وعلى ربا نف كأريجا مركا قف كريرمي جاي وكود دالو sanad ama laba uu iibinayo meequu ka heli karaa waxa barbar dhigtaa kan wax soo bartay oo sameeya telefoon iPhone meeqa daqiiqay ku qaadataa ama saacadood inuu sameeyo meequu ka helaa waqti meequu geliyay taasad waxaad barbar dhigaysaa neefka ariga oo laba ama saddex sano dhaqanaysa haddii midna uu $1 yahay midna $50 yahay midna 10 daqiiqo ay ku baxdo midna 2 sano ay ku baxdo waxay idin sheegaysaa meesha aan dunida ka joogno wali dadka Soomaaliyeed waxay u ciil qabaan qabyaalad wali dadka Soomaaliyeed waxay u ciil qabaan laaluush iyo musuqmaasuq wali dadka Soomaaliyeed waxay u ciil qabaan inay marxaati ka noqdaan dawladnimadooda in lagu ciyaaro wali dadka Soomaaliyeed waxay u ciil qabaan sawiradaas in la soo bandhigo waxa loo baahan yahay in la ogaado dadka dhalinyarada ah oo boqolkiiba 70 oo anaga naga dambeeya inay xaq u leeyihiin mustaqbalkan ka duwan qof walba waxa laga rabaa inuu aqbalo in waxa naga dumay aanay ahayn sariina la tusay ama hay'adii waxbarashada ama dhaqaalehen ala qof walba inuu aqbalo qayb gudaheena kamidana inay duntay oo baahan in dib loo soo dhiso tartiib sababtoo ah haddii meel aan isugu nimaadno oo aan saruhu inay dunsan yihiin aragno oo aanay nagu soo dhacayn meeqa sano ayay qaadatay in la dhiso sababta loo dumiyey maxay tahay sababta loo dumiyey miyaan weli ku taagannahay maqaar baa weli saas ka shaqaynaya qaarna waa aamusan yihiin oo qashuucaya isoo ka xanuunsanayna
الدنيا وحال لغو نول يهي أنا دلك هذا كنو لان كرين هدانا ترتمي كرين قولي هذا إيه بيزنس كذا لغا قادنا يا هدانا نحرف الله markuu ugu dambaysa dalkaada adeega ku noqonaysa sababtoo adduunyada waxay u dhamaanaysaa sideebaad aqoon isugu difaaci karta halkan markaan anagu maxadka isgaarsiinta dib u furayno dawladda nagu dhagan oo Djibouti maanta waxay isugu yeertay madaxda dawladaha Afrikaanka si uu tusto بلايين الدولار أي قشطي جناحسي اللي هذا فري بورتيغا. وهذا كي نقول لكن واحد فينيش شتال. وهذا توبي نقول لكن سيدا سوكلا. وحال رباطات كصومالية ديني هردة ككعان. صومالية وحال الرباعين لحساب طمو. حسابتن ما هيسان وعن لا يهاي إذنكم معتن قبيالتنا أن غرني مكو بدلنا لا لوشكا يا مصوماس وقنا أن داعدنا مكو بدلنا فدي كردير كان أن شقكو بدلنا وما تنتهي